الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة وهذا خير شرفت له. ما أنت روح نشرح عندنا إن شاء الله دوي بإدمه. How to make a dark sensor on breadboard. معنا وحن project يوحوك حساب سنة ما أنت سيدا لو سمية نل كشقيو وحال أرك جري نل كشقيو معنا هو عاد نل كان هو وحوك شقيا كليا markuu imaado mugdi ama iskala markay jirto waxa waaye waxaan iftiin ahayn markaas larkii wuxuu u shidmaa markaasi oo waadahay inta laakiin iftiin oo jiro waxa waaye larkii waxa waaye wuxuu noqonaa markaasi mid oo iftiinkiisa aad u yar waxyaalaha deer device-ka aan isticmaalano waxa ka mid ah sida tan okay transistor-ka waa kana waxa waaye wuxuu leeyahay markaasi sida tan saddexda waxa ka mid ah markaasi sida tan base emitting collector waa BC wuxuu leeyahay markaasi 547 waa midkan waa transistor-ka waa base emitting collector waa saddexda shay uu leeyahay saddexdaas waaye waxaan sameynaa marka waxa waaye waa dhisaynaa marka building aan sameynaa waa saddexdan waa kan halkan sii gelinaa already waan diyaarsanay waa gelinay waxa kale aan sameynaa markaasi LDR-ki waa kana LDR-ka waa asna waa kana markaan connection gareeyno waxaan connection gareynaa markaasi base iyo emitting waxaan ku adeeynaa marka labadan shay base iyo emitting waa kan waa markaasi LDR-ka waa kana halkaan aan gelinaa markaasi waxaan sameynaa marka halkaan kadibna marka halkaan markaan sameyno waxaan xig markaasi waxa loo yiraahdo marka resistance marka waa kana waa 1k ohmka waa kana midkan waa 1k ohm waxaan marka geliyeynaa markaasina waa halkaan halkaan gelinay kadib waxaan oo dhimaa markaasay shaqadi midkan light emitting diode-ka waa diode-kan aan oo dhiman waa qaybta waxa waaye qaybta dheer waxa waaye positive qaybta hoosena waxa waaye negative kadib waxaan sameynaa marka fiilooyinkan ayaan soo qabanaynaa marka mid kamid ah waxaan geliyanaa markaasay meeshan oo ah base-kii waxaan marka connection gareynaa marka minus mid kale waxa waaye halkaan kasoo qabanaynaa marka iyadana waa qaybta oo waxa waaye resistance-ga waxaan gelinayaa marka positive-ka qaybta oo macnaha breadboard-kii kadib waxa waaye 9 voltage battery-da waa tana marka halkaan waxaan ku adeynaa marka positive-kii waaye midka kale waxa waaye markaasi waa negative-kii waa already larkeedu waa kana oo shidmay laakiin iftiinka waxa waaye iftiinkii oo marka xoogaa hadda wax yar mugdiya jiro markuu hadda larka markaan damino wuxuu sameeyaa marka waa kana hadda fiiri wuxuu shaqeynaa marka iftiinkii markuu saa markaan yeelno iska markii waxa waaye iftiin badana meeshan ka dhacda waxa kale ku ogaan kartaa markaasi markaan sameyno ii sheeg adi larka markaan damino waxaa arkay markaasi iftiin oo waasace ayaa arkay markaasi ma larka aan damin hadeer waa kana markaas iftiinkiis waxa waaye oo kusii zaa'iday markii saan u daran waxa waaye iftiinkiis aad u yareeyay waa kana fiiri waa kana iftiinkiis aad u yareeyay fiiri sensor waaye markaasi gacmaha marka saan u dhabeeyo waxa uu maleynaya marka inuu si zaad u shidmo markii saan oo larka oo hal mar aan sameeyna marka waxa kana iftiinkiis waa kana iftiinkiis waxa waaye xogaar normal waaye laakiin haddii larka hal mar la damiyano wuxuu noqonaa marka iftiin zaid halkaas ku dhaca ama hadda ma gacmaha hal mar sacabka hal mar saa markaan yeelno waa kana iftiinkiis zaid u shidan yahay markaan saan u dhaqaajino waxa waaye waxa uu maleynaya marka iftiinkiis inuu loos gareysmaayo markaasi mar hal mar aan tijaabino iftiinka aan damina markaasi waa kana fiir soo shidmi waa kana waaye inuu shidmay marka aan daarno waa kana fiir iftiinkiis waxa waaye aad u hooseeya waa kana markaan saan waa kana waa intaas waaye asxaabta sharafta leh waa cashirkan waxa waaye how to make dark sensor on breadboard waa intaan waaye asxaabta soo dhawaada sharafta leh oo aniga ah injineer Saadax Xasan Buwe waxaan idin codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan channelkana Somali Touch Lab waxaan idin leenahay soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh